markuu ogaaday in aabihiisa uu yahay bahal weyn oo mar ku dhawaaday inuu burburiyo dhulka. Wiil dhalinyaro ah ayaa ku qasbanaaday inuu kala doorto ma inuu noqdo boqorka bahalada ee loo yaqaano KARTOON mise inuu adeegsado awoodihiisa cusub si uu bini'aadamka u ilaaliyo. Maalintii ugu dambeysay ee dagaalka u dhaxeeyay dadka iyo bahalada waaweyn ee KARTOON, geesinimada Marjet ayaa badbaadisay dunida. Isla maalintaas Marjet waxay la kulantay Beelok oo ahaa ninkeeda. 16 sano kadib, wiil la yiraahdo Dansan wuxuu noqday qaangaar, wuxuuna ka walwalsan yahay in uu la qabsado iskuulkiisa cusub. Dansan wuu ka duwan yahay ardayda kale oo wuxuu subaxdii cunaa dhuxul, maqaarka kalarkiisuna waa oranji. Hooyadiisa waxay isku dayday inay dejiso, waxayna kula talisaa inuu xakameeyo xanaaqiisa si aanu mushkilad ugula kulmin ardayda kale. Sababtoo ah wuu ka duwan yahay dadka kale, Dansan way ku adag tahay in uu saaxiibo yeesho. Markuu iskuulka u socdo, wuxuu laad ku dhuftay qasac cabitaan ah oo wadada yaalay, taasoo si kama ah ugu dhacay baabuur ag taagnaa. Markuu hoonka gawaarida uu maqlay, Dansan wuu ka cararay, wuxuuna markaas si lama filaan ah ku arkay gabar la yiraahdo Jayna. Markaas ayaa dhalinyaro wadada marayay isku dayeen inay Jayna soo jiitaan, balse iyadu way iska indhatirtay oo socodkeeda ayay sii wadatay. Goortaas wiil la yiraahdo Toti ayaa arkay Dansan oo maqaarkiisu yahay oranji, wuxuuna bilaabay inuu ku jeesjeeso. Dansan wuu xanaaqay, balse wuxuu isku dayay inuu iska dhigo mid degan si aanu ugu dhicin dabinka cayda. Iskuulka gudihiisa, Dansan mar kale ayuu la kulmay Jayna, iyadoo si kama ah kofey ugu shubtay jaakadiisa. Wiilku wuxuu la yaabay gabadha quruxdeeda, wuxuuna ku dhahay wax dhib ah ma jiraan, isagoo si qarsoodi ah u eegaya iyadoo sii dhaqaaqaysa. Isla markaas Toti ayaa yimid oo u hanjabay, wuxuuna Dansan uga digay inuusan u dhawaanin Jayna. Tani waxay sii kordhisay xanaaqa Dansan. Markii macallinku ardayda fasalka uu baray Dansan, wuxuu fadhiistay meel u dhow Kiini iyo Isabella, isla markiiba saaxiib ayuu la noqday. Intii ay casharka sayniska uu socday, macallinku wuxuu ardayda u qaybiyey rake dhintay si ay u furaan. Jayna aad ayay uga carootay, iyadoo diiday inay jirka xayawaanka kala furto. Dansan oo fiirinaya wuxuu ogaaday in xayawaanku aanu caadi ahayn, wuxuuna leeyahay jir iyo muuqaal cabsi badan. Si aanu dadka kale uga arkin, Dansan wuxuu iska dhigay in rakihiisa uu nool yahay, taas awgeed ardaydu waxay u arkeen inuu yahay wiil caqli badan. Hase yeeshee, wuxuu awooday inuu badbaadiyo xayawaanka oo meel ammaan ah ayuu geeyey. Markuu xayawaanka jaakadiisa ku qarinayay, Isabella ayaa u timid oo weydiisay su'aalo noloshiisa quseeya, oo waxay dareentay in Dansan uusan ahayn dhalinyaro caadi ah. Isabella aad ayay u jeceshahay KARTOON, mana u aragto bahalo xun inay yihiin. Waxay ogtahay in xayawaankan ay dadka weeraraan kaliya markay naftooda difaacayaan, maadaama bini'aadamku mar walba uu soo dhawaado. Iyadoo fiirinayso, Isabella waxay aragtay in Dansan uu wax ku qarinayo jaakadiisa dhexdeeda, waxayna weydiisay inuu tuso. Markay aragto xayawaanka yar ah, aad ayay ula yaabtay, waxayna muujisay inay aqoon badan u leedahay xayawaanada KARTOON la dhaho. Kadib markii uu ka qaniinay gacanta Dansan, bahalka yar ayaa cararay, isagoo aad uga baqaya dadka. Intii lagu jiray fasalka jimicsiga jirka, Dansan wuxuu la kulmay Banes oo ah ilaaladiisa tan iyo dugsigiisii hore. Ciyaarta ugu horeysa, Dansan wuxuu ka mid noqday kooxda ka soo horjeeda Toti, wuxuuna arkay kooxdii dhalinyarada xunxun oo ka adkaanaya dhammaan ciyaartoyda kale. Laakiin markii Keeni la rabay in kubad lagu dhufto, Dansan ayaa hor istaagay saaxiibtiisa oo difaacay. Kadib si fudud ayuu uga adkaaday weeraradii kooxda kale, taasoo dhalinyarada kale ka yaabisay sida uu leeyahay xirfad dagaal oo caynkaas ah. Markuu kubaddii saddexaad gacanta ku qabtay, Dansan wuxuu fursad u helay inuu ka argoosto, wuxuuna kubadaha ku dhuftay wejiga Toti. Daqiiqada kadib, gudaha qolalka dharka lagu bedelo, Toti oo fulay ah ayaa kooxdiisa ku booriyey inay ka argoostaan Dansan. Dansan wuxuu Keeni ku dhahay inuu baxo si aanu dhaawac u gaarin. Isaga keligiis ayuu xariga kabaha intuu xirtay kadibna ka baxsaday, sababtoo ah wuxuu ka ballan qaaday hooyadiisa inuusan iskuul dagaal ku gelin. Wuxuu og yahay inuu xoog iyo xirfad ku filan leeyahay si uu dhammaan dhalinyaradaas keligiis uga adkaado, balse wuxuu go'aansaday inuu ballantiisa u dhowro. Markuu ka baxo garoonka, Dansan wuxuu ku dhex orday iskuulka, isagoo qabsaday alwaaxyada saqafka si aan loo qaban. Intii la bursanayay, wuxuu galay maktabadda, isagoo ku ordaya buugaagta dushooda si uu u baxsado. Si kastaba, Toti kama quusan inuu qabto, markaasna Banes ayaa go'aansaday inuu soo farageliyo. Dansan ugu dambayn wuxuu ku xayirmay meel dhammaad ah oo go'an. Isagoo isku dayay inuu ku qanciyo Toti inuu iskaga tago, Toti wuxuu ku adkaystay inuu dhaawaci doono. Dansan isagoo xanaaq uu ka muuqdo, ayaa dab afkiisa ka soo afuufay, taasoo cabsi gelisay cadowgiisii. Si lama filaan ah, Banes ayaa yimid, afkiisana gacanta ku daboolay si uusan dab kale afkiisa uga imaan. Kadibna wuxuu Toti ku amray inuu fasalka ku laabto. Banes wuxuu Dansan geeyey baska iskuulka, kaasoo dhab ahaantii ahaa meel qarsoodi ah. Saacado kadib, waxay yimaadeen shaybaar qarsoodi ah si loo baaro sababta Dansan dabka u soo afuufay. Kadib baaritaano, ditoorka uu sameeyey wuxuu sheegay in xoogga iyo awoodaha Dansan ay waqti kadib sii kordhayaan, isla markaana hadda uu helay awood cusub. Mustaqbalka wuxuu baran doonaa sida loo xakameeyo, balse ilaa intaas waa inuu ka fogaadaa dagaalada waaweyn. Goortaas Marjet ayaa timid, aadna uga xanaaqday markii ay ogaatay in Banes uu wiilkeeda shaybaarka u geeyey. Iyadu waxay shaqaalaysiisay shirkadda uu ku jiro Banes si loo hubiyo in Dansan nolol caadi ah oo dhalinyarnimo uu ku nool yahay, taasoo micnaheedu yahay inuusan wax xiriir ah la yeelan KARTOON. Markii uu iskuulka ku laabtay, Banes wuxuu xafiiska maamulaha u aaday si uu uga sharxo sababta Dansan dabka u soo afuufay, isagoo isticmaalay budo rasaas ah si uu tusaale ugu sameeyo. Toti oo xanaaqsan ayaa ku adkaystay in dabku afka Dansan ka soo baxay, balse maamulaha oo og in Toti uu yahay dhibaato abuure weyn, wuu iska indhatiray hadalkiisa. Si uu u dhammaystiro khilaafka ardayda, maamuluhu wuxuu ku amray Dansan iyo Toti inay si wada jir ah qolka cuntada u nadiifiyaan, haddii kale waxbarashada laga joojin doono. Isla markaas, Isabella ayaa timid oo ku casuuntay Dansan
diyaarsan xafladda ay dhiganayso. Inkastoo xafladaha noocaas aanay ahayn kuwa uu jecel yahay, haddana markuu ogaaday in Jane ay iman doonto, wuxuu go'aansaday inuu aado. Markay Margaret maqashay in wiilkeedu xaflad lagu casuumay, way ku faraxday iyadoo ku qanacday in Dansan ugu dambayn bulshada la qabsan karo. Dansan hooyadiisa ayuu macasalaameeyey wuxuuna u baxay guriga Lara maadaama waalidkeeda safar ku maqan yahay. Markuu halkaas u gaaray, wuxuu arkay Jane oo aad u murugaysan. Ardaydii kale oo dhan waxay ka caraysnaayeen Jane sababtoo ah lacagtii ay u ururinayeen xafladda soo dhaweynta way ka luntay. Jane waxay lacagta ugu jirtay armaajada, balse qof baa xaday, mana garanayso cidda ay tahay. Iyadoo niyad jabtay ayay go'aansatay inay baxdo. Markaas Isabella ayaa u timid oo cabitaan siisay Dansan. Goortaas mid ka mid ah martida ayaa qayliyey markii uu arkay bahalo badan oo xafladda u soo socda. Dhulka ayaa gariiray, dhulgariirkii ayaana dilaac sameeyey. Markaas ayuu soo muuqday Belok oo markay ardaydu arkeen bahalka si argagax leh ayay u carareen. Dansan isagoo go'aansaday inuu badbaadiyo saaxiibtiisa, wuxuu Isabella geeyey meel qarsoon wuxuuna u sheegay in bahalkaasi uu yahay aabihiisa. Shaki la'aan boqorka Kejes ayaa soo baxay 16 sano kadib isagoo raadinaya wiilkiisa. Markuu Belok uu soo dhawaaday, Dansan wuxuu Isabella ku amray inay cararto, balse bahalka ayaa dhabarkiisa ku qabtay. Isagoo xanaaq uu ka buuxo, Dansan wuxuu mooto ku dhuftay aabihiis, laakiin weerarku waxba kama tarin. Markaas ayuu bahalka meel kale ku jiiday si uu saaxiibtiisa u siiyo fursad ay ku baxsato. Intii uu baxsanayay, Dansan waxaa ku dhacay dabka Belok, laakiin dhaawac mausan soo gaarin. Kadib Kejesku wuxuu qabtay Dansan oo godkiisa geeyey. Halkaas ayuu Belok wiilkiisa ugu sheegay in ka hor inta bini'aadamku uusan jirin, Kejesku ay dhulka hore u deganayeen. Intuu meesha ku dhex socday, Dansan wuxuu xaday dhagax yar oo aad u dhalaalaya, jeebka ayuuna ku qarsaday. Markaas ayuu aabihiis u sheegay inuu guriga geeyo, laakiin Belok wuxuu isku dayay inuu ku qanciyo wiilkiisa inuu sii joogo oo uu noqdo boqor dhab ah. Mustaqbalka Dansan waa inuu bedelaa aabihiisa oo uu xukumaa dhammaan Kejeska maadaama dagaal weyn ka dhex dhigi doono bini'aadamka iyo Kejeska. Belok wuxuu wiilkiisa u geeyey qaar ka mid ah kuwa ugu daacadsan, wuxuuna u soo bandhigayay inuu dhaxal sugihiisa uu yahay. Laakiin Dan iyo Astro raalli kama noqonin in uu xukumo wiil bini'aadam u eg, waxayna ku doodeen in Belok uu ceebeynayo jinsigooda. Boqorku aad ayuu u carooday wuxuuna weydiiyey cidda ku dhiiratay inay dagaal ku qaado, isagoo og inaysan jirin Kejes isaga si cadaalad ah uga adkaan kara. Markaas ayuu wiilkiisa ku tuuray barkad dab kulul uu ku jiro. Ugu dambayn markii Dansan uu ka soo baxay, muuqaalkiisu mid cabsi badan ayuu noqday. Kadib markii uu dab xooggan ku afuufay godka, Dansan uu dhacay. Markuu soo toosayna wuxuu isku arkay isagoo meel lama degaan ah jooga. Khibradaas run kadib jirkiisa ayaa si cad u soo muuqday, midabkiisuna oranjo ayuu noqday. Daqiiqada kadib wuxuu tagay teendhada Kenny, wuxuuna la yaabay inuu saaxiibkiis uusan la yaabin muuqaalkiisa cusub. Intii ay wada hadlayeen, Kenny waxaa soo wacday Margaret oo ugu dambayn wiilkeeda la hadashay. Markay aragtay isbedelada jidhka wiilkeeda way la yaabtay, wayna ka walwashay. Inkastoo aysan ku raacsanayn go'aanada Belok, haddana waxay u sheegtay inay jeclayd. Sababtoo ah markii ay la kulmaysay wuxuu ahaa makhluuq aadeen u degan oo dhib badan soo maray. Laakiin waqtigaas kadib Kejes wuxuu nacaybka uu dadka u hayo ku qariyay qalbigiisa, haddase waa in la joojiyaa. Maalintii xigtay, Dansan markuu iskuulka uu tagay, wuxuu la yaabay sida ardayda kale ula dhaqmeen. Halkii ay ku xukumi lahaayeen muuqaalkiisa, waxay u muujiyeen soo dhaweyn, wuxuuna dareemay inuu guri uu meel kale ku leeyahay kaasoo baxsan gurigiisa. Taas waxaa sabab u ahayd Isabella oo iskuulka oo dhan u sheegtay in Dansan uu Belok ka fogeeyey xafladda oo uu badbaadiyey qof walba. Galabtii Jane markii ay armaajadeeda furtay, waxay ka heshay baqshad. Markay furta, waxay aragtay dhagaxii Dansan uu ka soo xaday godkii aabihiisa. Haddii ay iibiso, waxay helaysaa lacag ku filan si ay u bixiso xafladda soo dhaweynta oo ay dib ugu hesho sumcadeeda iskuulka. Intii lagu jiray waqtigii nasashada, Dansan wuxuu Jane u bilaabay sheeko, wuxuuna ka dhigay inay aqbasho casuumaadiisa si ay lamaane uga noqoto xafladda. Jane hadda uma aragto Dansan inuu yahay mid dadka ka duwan. Kadib casharka, Banes wuxuu Dansan geeyey shaybaarka isagoo rajaynaya in ditoorka uu xal u helo maqaarkiisa. Laakiin intii ay socdeen, shil baa dhacay. Banesna wuxuu kursigiisa ka bixiyey si aysan qaraxa ugu dhimanin. Dhibaatadu waxay ahayd Dansan ayaa dhulka ku dhacay, wuxuuna arkay Kejes inay sugayaan. Isagoo cabsi ku jirto ayuu si lama filaan ah isu bedelay, dagaalna la galay bahalkaas. Markuu mid ka mid ah faraha cadowga uu ka jebiyo, Dansan waa la soo weeraray, balse wuxuu awood u yeeshay inuu jebiyo dhammaan dhagaxii lagu dhuftay, wuxuuna ku dhuftay bahalka. Banes markuu dagaalka arkay, wuxuu saldhigga u diray codsi gargaar ah. Intii lagu jiray dagaalka, Dansan wuxuu arkay aabihiisa, wuxuuna gartay in lagu imtixaanayo. Markaas ayuu dab afka ka soo bixiyey oo uu kadibna ka adkaaday bahalkii. Belok wuu og yahay haddii wiilka awoodiisa uu caddayn waayo inuusan Kejes kale uusan ixtiraami doonin. Sidaas darteed wuxuu wiilkiisa ku qasbay inuu dagaal galo si uu isu muujiyo kartidiisa. Markuu Dansan ku dhawaaday inuu bahalka dilo, ciidankii Banes ayaa weerar qaaday. Goortaas boqorka bahalada ayaa wiilkiisa meel ammaan ah geeyey, wuxuuna dab ku baabiyey intii ugu badanayd askarta. Isagoo go'aansaday inuu Belok soo ciribtiro mar keliya, Banes wuxuu galay taangiga dagaalka kadibna wuxuu bilaabay inuu rasaas ku furo. Laakiin Belok wuxuu qarxiyey taangigii. Dansan markuu arkay in dagaalku uusan dhammaan doonin, wuxuu go'aansaday inuu dhex galo oo isku dayo inuu nabad u sameeyo labada dhinac. Laakiin markaas ayay wax aan la filayn dhaceen. Belok oo aad u neceb dadka ayaa go'aansaday inuu isdiibo waana la xiray. Maalin kadib waxaa yimid xafladii waxaana Jane gurigeeda ka soo qaaday Dansan. Gabadhii way yaabtay markay aragtay in Dansan saaxiibadiisa uu la yimid, waxaana baabuurkooda wadaysay Margaret. Intii xafladda lagu jiray, Isabella waxay fariisatay iyadoo daawanaysa wiilka ay jeceshahay Dansan ah oo gabadh kale la ciyaaraya. Tan iyo maalintii ugu horeysay ee iskuulka, Isabella waxay lahayd dareen jacayl oo ay
u qabtay daansan balse weligeed uma sheegin. Dhanka kale Kenny oo ah saaxiibkeeda carruurnimada isaguna wuxuu jeclaa Isabella balse weligiisa arrimahaasi kama uusan hadlin. Xilli habeen ah Director Dave wuxuu ku dhawaaqay boqorka iyo boqorada xafladda. Toti iyo Jenna ayaa la doortay waxaana lagu caleema saaray taaj. Markay wada ciyaarayeen Isabella waxay fursad u aragtay inay daansan u soo dhawaato waxayna weydiisatay inuu la ciyaaro. Kenny aad buu u xanaaqay wuuna ka carooday isagoo sheegay in daanaan uu yahay wiilka Beloog. Jenna markay maqashay arrintaas waxay ku amartay daansan inuu ka fogaado sidaas ayaana wiilkaasi uga tagay xafladda. Daansan oo niyad jabsan wuxuu galay qol gooni ah si kama ahna dab buu ka kiciyey wuxuuna gubay dharkiisa. Asaga oo mashquul ku ah dabdemiska xitaa ma uusan garanayn in keejasku ay gudaha u soo galeen xafladda. Kooxdii bahalada ahaa ayaa soo weeraray. Markaas kadib bahalo kale oo waaweyn ayaa yimid waxayna burburiyeen hoolkii xafladda. Isabella iyada oo cararaysa ayay dhulka ku dhacday. Kenny isagoo doonaya inuu badbaadiyo saaxiibtiis wuxuu isku dayay inuu mashquuliyo bahalka balse waa la qabtay. Daansan ayaa markaas soo baxay oo bir culus ku dhuftay bahalka si uu u badbaadiyo Kenny. Ka hor intuusan dhimanin Kenny wuxuu daansan ka codsaday cafis oo ah inuu sirtiisa iskuulka oo dhan u sheegay si uu saaxiibadiisa u badbaadiyo. Daansan wuxuu bahalada u kaxeeyay lama deegaanka. Margaret waxay gashay markabka si ay wiilkeeda u caawiso. Jennana way raacday si ay qaladkeeda u saxdo. Margaret waxay tagtay xabsiga Beloog si ay u weydiiso in uu isaga soo diray bahalka si uu u dilo daansan. Beloog wuxuu sheegay in Dan iyo Astaro ay yihiin khiyaanoolayaal aysan doonayn daansan inuu noqdo boqorkooda mustaqbalka. Markuu ogaaday in nolosha wiilkiisu khatar ku jirto Beloog wuxuu soo jebiyey xabsiga wuxuuna soo dabaraacay khiyaanoolayaasha. Ciidankii Banes ayaa isku dayay inay joojiyaan laakiin wuu ka soo gudbay. Balse Banes wuxuuna qori ku qabtay daansan isagoo ku eedeeyay in Beloog uu sababay burburka. Laakiin isla markaas ayaa Dan iyo Astaro soo muuqdeen Banesna waa la qabtay. Daansan ayaa ku booday wuxuuna badbaadiyey Connell wuxuuna ka hor istaagay in la cuno. Kadib daansan garbo ayaa ka soo baxay dhabarkiisa wuxuuna awood u yeeshay inuu duulo. Wuxuu Banes geeyey meel ammaan ah kadibna dib ayuu ugu laabtay dagaalka isagoo ku baddab ah ku weeraray cadowga. Laakiin khibrad la'aan ayuu ahaa waana la qabtay. Daansan markuu halis galay Beloog ayaa yimid oo la dagaalamay Dan. Astaro ayaa ku soo biiray dagaalka labadaasna waxay isku dayeen inay Beloog ka tuuraan boqortooyada. Margaret si ay u caawiso ninkeeda hore waxay markabka ku dhuftay mid ka mid ah bahalada kadibna iyada iyo Jenna waxay ku baxsadeen baarashuud. Markuu arkay aabihiisa oo halis ku jira daansan wuu iska soo furay oo wuxuu isticmaalay xeelad si labada bahal ay isugu dhacaan. Kadib wuxuu ku duulay buuraha wuxuuna dab ka dhaliyay baraf si uu u sameeyo baraf dhacweyn. Isaga oo kalsooni ku qaba in aabihiisa iyo hooyadiis difaaci doono wuxuu badbaadiyey Jenna. Ugu dambeyntii labada bahal ayaa ka soo dhacday buurta weyna ku dhinteen. Daansan iyo qoyskiisu way badbaadeen. Beloog wuxuu aqbalay inuu xabsiga ku laabto wuxuuna wiilkiisa ku yiri hadda hooyada la joog. Markii waqtiga ku haboon la gaaro ayaan ku iman doonaa. Ka hor intaanay guriga tegin Jenna waxay cafis weydiisatay Daansan waxayna tiri iskuulka ayaan kugu sugi doonaa Isniinta. Daansan oo hadda garbo leh diyaarad uma baahna wuxuuna go'aansaday inuu keligiis duulo si uu guriga ugu laabto.